ururka samafalka Zaydo oo fadhigiisu yahay magaalada Woodbury isla markaasina uu gudoomiye ka yahay Maxamed Cabdilaahi Maxamed Deeg ayaa deegaanka Banyaali xariga ka jaray dhamaystirka masjid jaamaca magaaladaasi iyo waliba qalabeyntiisa oo markaasi ay iska kaashadeen ururka Anfac iyo Zaydo waxayna odayaasha iyo culimada ku wareejiyeen deeq kutubo ah iyo codbaahiyaasha mikrofoonka waxaana halkaasi ka mahad celiyay odayaasha deegaanka iyo culimada una mahad celiyay ururka Zaydo sida uga howlgalayo deegaankaasi iyo waxqabadkiisa iyo waliba ururka Anfac oo isna kaalin libaax leh ka qaatay dhamaystirka masjidkaasi dayactirkaasi ma aha wax kale waa safiitadii masaajidka oo inaga dhimay waxaan maanta halkan ku cadaynayaa in masaajidkii Banyaal safiitadii lagu xidhay oo aad arkaysaan oo si qabow lagu tukanayo la manaafacadsanayo waxaan sidoo kale halkan ku wareejin doonaa kutubtii oo ay iyadana ay soo sadaqadaysteen walaalaheen dad islaam ah oo aan u baahnay aniga oo gudoomiye ka ah urur samafal oo la yidhaahdo Zaydo oo ka jira deegaanka Woodbury waxaan qayradheenta qaybiga siiyey gabdho urur ah oo gurba joog ah oo Anfac la yidhaahdo iyagana inaan hela siiyo oo iyaguna deegaankeena ka soo jeeda halkan kan ku guddoonsanay oo aan ku lagu keenay annana aan ku guddoonay dayactir fara badan oo uu leeyahay masjidka Banyaal qaryada Banyaal alaabtaas oo kala nooc ah samiicadihii leh kutubtii leh safiitooyinkii leh masjidka waxaan cadaynaynaa Maxamed Cabdilaahi Maxamed Deeg hawshii uu hormuudka ka ahaa odaygana ka ahaa gudoomiyahana ka ahaa gabadha Maryam Xasan Xaad qalabkii ay jaaska u tala gashay ahaa safiito barafayro sanaacado qalabkii noocaas ah inuu soo gaaray ugu sheekeeyeen ilaahay waxaan kaaga baryaynaa baryaha iyo horeynta in ilaahay dunyaha ugu qaadsan ilaahay jannada kaaga dhiso dembigaaga iyo kiimaadkaaga alla ku dhaafo maxamed wixii loo xilsaaray iyo ururkiisa khayrigaaba waa soo gaarsiiyey waad arkaysaan in ay maanta dadkii muslimiinta ah oo masaajidka ku tukanaya ay markhaati ka yihiin sidoo kale saraakiisha ururka Zaydo ayaa xariga ka jaray marcaamad qur'aan ka kooban 2 qol oo ay ka dhiseen deegaankaasi iyagoo la kaashanaya ururka Anfac waxaana halkaasi ay odayaasha ku wareejiyeen labadaasi qol oo si aad ah loo qalabay anigoo ku hadlaya magaca ururka samafalka ee Zaydo iyo sidoo kale ururkii haweenka ee iga caawiyay barnaamijkan oo la yiraahdo magaciisa Anfac waxaan halkan maanta ku cadaynayaa in dhismihii dugsiga Banyaal uu gabagaboobay una dhamaaday aanan ku suganahay xafladii furitaankiisa wadajir baa laba gabdhood ku gooyaan tabantaabadii laba gabdhood markii yeeshaan hadday midibtu kali taagantahay taariikh goyseen farkeli form dhaqdo qofku gacan kali waxba ma qabato laakiin waxa weeye xaajadeenu intii nin dhibtaa laba ma dhibto inaynu wax kasta oo ina soo wajaha dal iyo dibad iska kaashano waxa ulaha laga soo sheekeeyay maadi hadday tahay iyo diini hadday tahay iyo dacwo hadday tahay iyo xagga dhakhtarada hal qol oo si abjoog gabdhuhu noogu umulaan marin miisaanka xasanaadka ilaahay idin saaro meel wax la gasho waa ugu faa'iido badnayd baad gelisay wax ciddii aad ku soo amaaniseen way noo soo gudbisay way soo gudbisay sida ugu fiican ugu amaanada badan ee ugu asturan bay u soo gudbisay hantidaasi hanti ilaahay idinka khasaariyay ma hanti ilaahay idin asturay oo idin gashay miisaanka xasanaadka ayaa rajayna idin noqon ururkii hawsha fuliyay oo Zaydo oo runtii deegaankan aad iyo aad ugu shaqeeya fududeeyay ama suura geliyay in hawshan ay dadka khayrigii ay la khayrka la baxaya ay soo dirsanayaan in ay si ammaanad leh oo mug leh oo sharaf leh ay u gudbiyaan aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa
وأنا كقدوني مدرسة دينا حتى لقى بلا ويفرنت تعالى ويديننا ونقع سميين يا الله سبحانه وتعالى أبا المرين الله بالأوافية وكأبا المريو وانو بدوني هذه يدي شرفت العيد أتنا سو ديبتين وأتكون مع سنتين هل كنا نشوفنا أنا ودبسي القرآن الكريم كا شرفت كم مغطويدين أو أدركتان هذه يدي أتسو ديبتين يدي كان كوسو ديبتين وين السوق isku soo wada duuba ururka Zawda oo fadhigiisa yahay deegaanka Wulul isla markaasina muddo ka hawlgalayay deegaankani ayaa muddadaasi waxa uu qabtay hawlo ay ku dirsadeen bulshadu sida baahinta iyo soo bandhigista dadka xanuunsanaya ka qayb qaadashada goobaha masaajidada iyo malcaamadaha waa Cabdi Ciro Kalsan TV magaalada Wulul.